waxaa dhamaaday hadal jeedintii musharaxiinta madaxweyne hadaba su'aasha isweydiinta mudan waxa weeye yaa ugu hadal jeedin fiicnaa yaa barnaamijka siyaasadda ama barnaamijkeeda siyaasadda ka gada xildhibaanada iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed ciyaarta sharafta meel walba joogta waa salaamantiin maxamed faarax arbacadii iyo khamiistii waxaa socotay 39 ka musharax ee madaxweyne u tartamay Soomaaliya bishanaad 15 ayaa waxay soo bandhigeen siyaasadooda barnaamijka siyaasadooda waxay qabteen iyo waxay qaban doonaan kuwaas oo ka gadayay baarlamaanka Soomaaliya 399 ee dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed hadaba waxaan indheeyay an social media warbaahinta Soomaaliya siyaasiyiintii hore iyo kuwa ka falan qoraysay Soomaaliya dhammaan markaa indheeyay waxay sheegeen in saddex fikirka guud ama ra'yaasha markaa isku koobay in saddex musharax ay ahaayeen saddexda musharax ee ugu hadal jeedinta fiicnaa waxay leeyihiin kaalinta koowaad waxaa galay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo soo bandhigay hadal jeedin aad iyo aad u wanaagsan barnaamijkii siyaasadda si fiican u soo bandhigay kaasoo ka gadayay xildhibaanada iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed khudbadiisa waxay khudbad taariikhi ah ee dhammaan ka wada heleen musharaxiinta xildhibaanada Soomaaliyeed ee fadhiyay madasha hoola fasione iyo kuwa dadkii daawanayay shacabweynaha daawanayay khudbadiisa waxaa ku jirtay waxqabadkiisa wuxuu qabtay iyo wuxuu qaban doono haddii mar kale loo doorto waxaa ka mid ahayd in ciidanka on time mushaarkooda siiyo shaqaalaha rayidka mushaar siiyo hore aysan abad u dhicin in uu ciidanka wali dhismo uu ku wado in amniga ay kala wareegi doonaan atmis ciidamada ajaanibta Soomaaliya joogan inay ciribtiri doonaan la dagaalami doonaan al-shabaab siyaasadda arrimaha dibadda in security councilka Soomaaliya ka mid noqon doonto iyo waxyaalo aad iyo aad u fara badan qubarada ayaa sheegay ama shacabweynaha dhammaan ayaa sheegay in khudbadda ay ahayd khudbad mataqaana soo jiidanaysa qulubta shacabka khudbad aad iyo aad u kicisay dhammaan dadkii daawanayay waxayna ahayd run ahaantii khudbadii ugu taageera daawashada badneed dhammaan 39 musharax waxaa daawanayay in ka badan live meelaha qaarkood 30,000 40,000 anoo kale waxaan ka daawanayay Somali National TV waxaa daawanaysay 25,000 oo qof ayaa hal markaas daawanaysay number 2 waxaa galay ay leeyihiin khibrada ra'iisul wasaarihi hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre wuxuu soo bandhigay barnaamijkii siyaasadda waxaa ku jiray hadaladiisa ama khudbadiisa ku jiray in mushaarka uu kordhi doono xildhibaanada in 100,000 oo dhalinyaro ka badan uu shaqo abuur u subin doono iyo in inta ra'iisul wasaaraha Xasan iyo barkii uu wax qabtay khibrada siyaasadeed ee shacabka weynaha Soomaaliyeed waxay leeyihiin halkaas waxaa ka jira overlap maadaama isku credit ay sheeganayeen farmaajo iyo Xasan Cali Khayre halkaas waxaa ka jira leeyihiin overlap laakiin wuxuu soo bandhigay wax qabad barnaamij siyaasadeed aad u fiican balaaqana Ilaahay waa u dhaliyay Xasan Cali Khayre qofka saddexaad waxaa noqday oo khudbad hadal jeedintiisa aad u fiicnaan siyaasiga weyn ee caanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur sida ognahay balaaqo iyo hadal wanaagsan Ilaahay u dhaliyay wuxuu yahay siyaasiyiinta aan Soomaaliyeed oo ugu fiican xagga hadalka wuxuu soo bandhigay barnaamij siyaasadiisa waxaa ka mid ah khudbadiisa markaan dhageystay dadka ay odaray inuu dhameystiri doono constitutionka Soomaaliyeed madaxweynayaashii hore ee san dhameystirin balse asaga uu ku dhiiran doono inuu dhameystiray iyo waxyaalo badan uu ka qaban doono dalka in mataqaana dadka kala fikrad ka duwan u dili doonin ama xiri doonin sidii awal asaga lagu suubiyay gunaanadkii muwaadin Soomaaliyeed waa daawatay khudbadihii 39 musharax ama badankood waa daawatay ama siyaasiga dacashahay khudbadiisa waa daawatay haddaba reed garee yaa noqday kaalinta koowaad yaa ku ah yaa noqday dadka badankood waxay wada sheegayaan iyo warbaahinta Soomaaliya social media saddexdan sheegay farmaajo Khayre raali ahada iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur balse adiga yaa noqday kaalinta koowaad yaa hadal jeedintiisa barnaamijkiisa siyaasadeed soo si fiican u soo bandhigay oo adiga ka heshay yaa wax qabadkiisa ka heshay ama ballanqaadkiisa ka heshay fadlan fikirkaaga ka dhiibo videogan la weeg dhammaan akhyaarta sharafta leh ummadda Soomaaliyeed waa maasantiin